السير رسول أبي كريم الطباع وأصحابه حوله كالدرر تنام المعالي على طرفه وتصحو على صوته في السحر. muddo ka hor waxaa jiri jiray nin oday ah kaasoo aan jeclayn deriskiisa marka wuxuu bilaabay inuu ka sameeyo warar been abuur ah in deriskiisu tug ahaan jiray waqti kadib dadkii waxay bilaabeen inay aaminaan ninkan odayga ah oo cidnama doonin inay ninkan deriska wax ku yeelato ninkii odayga deriska la ahaa wuxuu bilaabay inuu lumiyo asxaabtiisa taasoo sababtay xitaa ganacsigiisii inuu fashilmo marka wuxuu go'aansaday inuu odayga dacweeyo been abuurka isaga ka sameeyey maxkamadda dhexdeeda ayuu odaygii u sheegay garsooraha erayadan waxay ahaayeen erayo uun runtii cidna ma waxyeelayn qaadigii intaanu go'aankiisii gaadhin ayuu odaygii u sheegay ku qor dhammaan waxyaabaha aad ka tiri deriskaaga warqad kadibna u jeexjeexa warqaddaas in yaryar inta aad waddada ku sii socoto kadibna waraaqahaas daaqadda guriga ka tur berri ii kaalay si aad go'aankayga u maqasho maalintii xigtay ayuu qaadigii ku yidhi odaygii waxaan go'aansaday sidii adigu aad jeclayd laakiin waa inaad marka hore hal shay qabataa waxaan kaa rabaa inaad kacdo oo aad soo ururiso dhammaan waraaqihii aad daaqadda ka tuurtay odaygii ayaa ku jawaabay ma kaftamaysaa ma samayn kara taas dabaysha ayaa faafisay oo xitaa ma garanayo halka laga helayo qaadigii ayaa ku jawaabay markaan waxun ka sheegayno qof si isku mid ah ayay u shaqeeyaan weligaa awood uma yeelan doontid inaad erayadaas dib u heshid wuuna xukumay odaygii waxyaabaha aan ku jeclaa sheekadan waxayna xasuusinaysaa in markaan si xun wax uga sheegayno qof waxaa laga yaabaa inaan u aragno inay yihiin erayadaasi kuwo aan dhib lahayn oo aanay cidna weligood ogaan doonin laakiin xaqiiqdii way kala jeexi karaan ruux kuna keeni karaan qof xanuun iyo rafaad badan sidoo kale weligaa dib uma soo celin doontid erayadaas sida waraaqahaas dabaysha raacay haddaanan si fiican uga hadli karin qof marka waxa ugu fiican ee aad samayn karto ayaa ah in aadan haba yaraatee waxba odhan maxaa yeelay haddaan kari weyno inaan afkeenna sayid u noqonno marka waxaan ku dambayn karnaa inaan addoon u noqonno hadalladeenna ugu dambayntii xasuusnow kolka cagahaagu simbirirxaan waxaad had iyo jeer ku soo kaban kartaa dheelitirkaaga laakiin markuu carrabkaagu baxsado weligaa erayadaada kama soo kaban doontid